Ismaaciil Yuusuf Raagi oo bulshada inteeda badan ay ugu yeeraan Odawa waxa uu ku dhashay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe sanadii 1987. waxbarashada dugsiga hoose iyo dhexe waxa uu ku qaatay isla degmada Aadan Yabaal. waxbarashada dugsiga sare wuxuu ku dhameystay magaalada Muqdisho sanadii 2005. wuxuu yaraantiisa jeclaa inuu ka mid noqdo ciidamada Soomaaliya isagoo ahmiyad gaar ah siinaya militariga. wuxuu ku dadaali jiray midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo sidii loogu soo kaban lahaa dhibaatooyinkii ay dadka Soomaaliyeed ka dhaxleen kooxaha nabadiidka iyo dadka gumaysi kaalkaalka. kadib markii uu waxbarashadiisa dhameystay 15 bishii toddobaad sanadii 2006 waxa uu ku biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. wuxuu tababar dhinaca ciidamada ku tagay dalka Uganda oo muddo hal sano ah uu tababar ku qaadanay isagoo soo bartay shuruucda ciidanka iyo ilaalinta madaxda VIP Production Course. markii uu tababarka soo idlaaday waxa loo xilsaaray inuu tababar u noqdo ciidan cusub oo dalka Uganda loo geeyay. tababar xilligaasi waxa uu sii kororsanay aqoon dheeraad ah oo ku saabsan dhanka ciidanka. sanadii 2009 waxa mar labaad loo qaaday tababar leeli sarkaal oo dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Uganda. sanadii 2010 ayuu dalka dib ugu soo laabtay isagoo xidigla waxa loo furay seminar 45 cisho oo uu ku qaadanaya dugsiga Hamadhowr ee magaalada Muqdisho. sanadkii 2010 saraakiil uu kamid ah waxa loo magacaabay taliyaal. waxa uu noqday taliyaha horin labaad ee ciidanka ilaalada madaxtooyada. muddo kadib waxa loo magacaabay abaanduulo urur inta uu ka tirsanaa guutada labaad. sanadihii 2010 2011 iyo 2012 waxa uu kamid ah saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay ka xoreynta kooxaha nabadiidka gobolka Banaadir, Shabeellaha Dhexe iyo weliba Shabeellaha Hoose, taas oo ku muuteystay in la guddoonsiyo abaalmarin muhiim ah. sanadii 2013 waxaa tababar ciidan loogu qaaday dalka Turkiga muddo hal sano ah ka oo ku soo qaatay takhasuska ciidanka lugta iyo luqadaha. markii uu dalka dib ugu soo laabtay waxa loo dalacsiyay darajada dhame. muddo kadibna waxa loo dalacsiyay darajada gaashaanle oo uu ku helay abaalmarin ku saabsan howlaha ciidanka. sanadii 2014 waxa mar labaad waxbarasho loogu diray dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Turkiga kuliyadda dagaalka. markii uu tababarka soo idlaaday wuxuu dib ugu soo laabtay dalka. sanadii 2016 waxa loo magacaabay taliyaha horin koowaad ururka 6aad ee ciidanka ilaalada madaxtooyada. muddo kadib waxa loo magacaabay abaanduulaha ururka 6aad ee ilaalada madaxtooyada. sanadii 2018 ayaa loo magacaabay taliyaha ururka 6aad ee ilaalada madaxtooyada Soomaaliya waxaana loo daracsiyay darajada gaashaanle dhexe. 16 bishii 8aad sanadii 2018 dekreeto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa loogu magacaabay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana loo dalacsiyay darajada sare ee guuto. 30 bishii 3aad ee 2019 isbedel lagu sameeyay hoggaanka sare ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka dhulka. 22 bishii 8aad sanadan 2019 kadib markii xilka qaadis lagu sameeyay taliyaashii ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waana taliyihii ugu da'da yaraa awid ee Soomaaliya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.